waligaa ayaa laa dulmiga iska ilaaliya oo ninkaba ninkii dulmiyey kamuu macaashin haddaba qisada maxay ka baran karnaa ninka dhalinyarada ayaa waxa waraysan nin Ibrahim la yiraahdo inta badan social media kusoo gudbiya dhacdooyinka iyo qisooyinka diiniga kusoo gudbiya haddaba ninka dhalinyarada ayaa waa Soomaali wuxuu yiri anigoo Soomaaliya jooga walow aanu sharxin magaalada uu joogay aanu sharxin wuxuu yiri anigoo Soomaaliya jooga ayaa xaafadaydu waxay doonaysaa dhul ay lahayd inay iibiso si aniga igu dirto jaamacadda marka dhulkii markaas la iibiya dhulkayga waxa dhulka ku xiga waxa iska lahaa nin kale oo sarkaal ahaa oo ciidan ahaa ayaa iska lahaa ninkii wuxuu yiri dhulkana ana leh waa dhulkayga hadda waa dhulkayga la doonayay in la iibiyo si jaamacadda u tago ayuu ninkii sarkaalka yiri dhulkana ana leh markii daba maxkamadda iyo dawladda markaas la galnaba ninkan uu naga awood bataa maadaama dad badan garanayo dawladdana awood badan ku leeyahay nin sarkaal la yahay dhulkiina sidii buu nagu xaniibay buu yiri oo inuu iibsan weyni marka biliya bar kadib wuxuu Sacuudiga ayaan imid oo Maka ayaan imid kabacda markay imid baa Ilaahay ka bariyay inuu Ilaahay ninka daalimka ah ee dulmaya dhulkayga xoog ku qaaday inuu Ilaahay iga hiiliyo wuxuu muddo markii aan Sacuudiga joogay waxa ku soo noqday wadankii ayaan ku soo noqday marka wadanka ku soo noqday meel maqaaxiya aan oo shaaha ka cabaya ayaa niman dhalinyaro ay yeedheen ninkii dhalinyarada ay yeedho wuxuu igu yiri miyaad garanaysaa quraarada hilibka ku dhex jira oo markaas aan ku yiri ma garanayo wuxuu igu yiri hilibka ku dhex jira waa ninkii barigii dhulka kugu haystay واحد قال لي يا شاكر تعال 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 فرحت إليه قال في قارورة الناس يشوفوا قارورة فيها لحم أحمر مرة علبة. أيوة علبة فيها قطعة لحمة لونها أحمر ninkii kansar ayaa ku dhacay buu ku yiri oo Hindiya ayuu tagay Hindiya ayaana laga soo jaray hilibka aad arkaysaana waa ninkii dhulka kugu haystay barigii sidoo kale wuxuu xaaskiisii oo iyaduna dulmiga kula socotay iyadoo daalanaya habeen seexatay waa seexanaya ayay tiri iyadina way dhimatay sidoo nabigu way noo sheegay qofka dulmiga lagu sameeyaa ducadiisa Ilaahay waa aqbalaa waxa fiican hadad qof muslim tahay Ilaahay buu iska xaarantinimay naftiisa dulmiga oo Ilaahay gaal iyo muslim toona mid toona dulmiya inaad aduguna ka fogaato ayaa fiican sidoo kale qisooyinka noocan oo kale waxaan ku soo gudbin doonaa channel-kan halkan soo dhigi doona ee follow iyo like tabarna wax ka iloobin